in aad joogtayso waxa aad bilowdid laba waxa kala ah qofka inuu sameeyo dadaal iyo inuu sameeyo joogtayn markii la sameeyo baaritaan dadka guulaysta dhamaantood ama ha noqoto dhinaca ganacsiga ama ha noqoto dhinaca waxbarashada ama ha noqoto dhinaca aday noqoto macnaha dhinac walba nolosha kamid ah dhamaantood waxa lagu heshiiyay in ay yihiin dad waxa ay bilaabaan joogteeya dad waxa ay bilaabaan aan macnaha hakin oo hore u wada taas waxa loo yaqaanaa persistence bal dib u noqda macnaha qof walba wax alifa qof walba wax sameeya qof walba adduunka wax macna lagu soo ziyaadiya ma kula tahay in markii koowaad uu sameeyay uu ku guuleystay wamay waxa kamid ah ninkan alifay macnaha ee keenay light bulb wax loo yaqaan halkan iftiimay hadda wuxuu isku dayay 1000 times wuu isku dayaa ma shaqayso markuu waday dadka qaar waxay dhahan 10000 hadda waqti ku noqoto markuu waday 999 ayaa waxa lagu dhahay ma waxaad sugaysaa markii kunaad inaad ku guuldareysato hadduu Soomaali ahaana waxa la dhigaa dagta xabeeb loo geeyo wuxuu dhahay macnaha waxaan ogaaday 999 macnaha qaab oo kala duwan oo aan loo sameyn karin light bulbs madii waa guuldareystay marka taa lafteeda waxay tusaysaa haddii waxa doonta heli weydo waxay ku xiran tahay qaabkaad u macnaynaysid haddaad u macnayso waxaan ma heli kartid oo niyadda ay kaa jabto isna good waa inaa u qaadataa qaab positive ah waa inaa u qaadataa qaab macnaha ay adiga kuu noqonayso in niyaddaad ay ku dhisnaato waxaa ka mid ah J.K. Rowling hadda gabadhan macnaha aad buugta u aliftay maadaama gabadho badan ay joogaan waxay ahayd single mom depressed lacag ma haysan on support ku noolayd an maanta waxay ka mid tahay dadka adduunka ugu hodansan ugu lacagta badan an maxay ku mutaysatay waa dadaal iyo joogtayn marka qofna lama dhalan guusha waxay u baahan tahay in loo shaqaysto